bandhig buugaag oo qiimaha nabadda lagu dhiirigelinayo ahna kii ugu horeeyay ee lagu qabto gaalkacyo ayaa magaalada maanta ka furmay. Magaalada colaad badan ayay soo martay, waxaana bandhigan u noqonayaa mid labada qaybood ee magaalada lagu kala qabanayo, waa furitaanka iyo xiritaanka. Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan magaalada gaalkacyo inaga soo diray. bandhigii ugu horeeyay buugaag ayaa maanta ka furmay magaalada gaalkacyo, waxaana xoogga lagu saaray nabadgelyo waarta oo halka ka hirgasha. Hiil Agoon waa mid ka mid ah buugaagta mawduucyada kala duwan ka hadlayay ee bandhigan la keenay. Shamis oo Muqdisho ka timi ayaa ugu tala gashay buugan in ay ku dhiirigeliso in colaadda laga baaqsado. markasto colaad ay dhalato oo dadka ku dhimanaya ay yihiin aabayaal oo markaasna laga yaabo in meesha agoon ku soo siyaado. marka anigana waxaan ka hortagayay inaan dadkii soo bandhigo xanuunka iyo dareenka iyo doonista iyo maxaa la dhaqnashada oo la nooleeyo cunuga agoonka si dhibaatada u yaraato ama dagaaladu u yaraadaan. geedi socodka nabadgelyada magaaladan marba heer ayuu soo maray. 15 iyo 16 heshiiskii ka dambeeyay wixii ka dambeeyay magaaladu waxay mar walba ay u halgamaysay kana dhabaysay nabadgelyo, nabad dhisid, isdhexgal, soo dhawaasho, sacalool baarasho, wax wada qabsasho. maanta tiibay marka muujinaysaa. gaalkacyo waxaa abuurmay jawi horumar wixii ka dambeeyay December 2015 xilliga Puntland iyo Galmudug wada gaareen heshiis nabadgelyo kadib markii dagaallo magaaladan ku dhex maray ay ku barakaceen in ka badan 85,000 oo qof. Macallin Cabdixakiim waxa uu xasuusan yahay raadadkii colaadda sokeeye ka hor nabadda gobolka Mudug. waxaana haddii dagaalku dhaco magaalada lagu kala tago in hooyadii aan ka walwalo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay kala kulmayso aniga iga waliso aniga aan ka walayo. waagi dambe alxamdulillaah rabbil caalamiin waqtiga hadda la joogo waxaan gaaray inaan gaariga anigu walay aan ka haysto aan aado meesha cadaado godan laba meesha raba docol camaara meesha doona aado wasiil meesha doona ka dhaco. magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug 30 sano ee ugu dambeeyay waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka ay ka dhacayeen dagaalada sokeeye. hadda waxa bilowday albaabkii khayrka bilowday, albaabkii nabadda bilowday, albaabkii Soomaalinimada bilowday. arintaasina waxay gaaraysaa dalka Soomaaliya oo dhan inay gaaraan ayaa rajaynayna. bandhiga buugta ee gaalkacyo lagu qabtay waxa uu saaka ka furmay qaybta Puntland. barina waxa lagu wadaa in lagu soo xiro qaybta Galmudug. dad badan oo gobolkan ku nool waxa ay tilmaamayaan inay tahay tallaabo hore loo qaaday. Maxamed Xasan, gaalkacyo.